bulshada ku dhaqan gudaha goboladan Awdal iyo Salel gaar ahaan magaalada Boorame caasimada gobolka Awdal waxay muddooyinkii ugu dambeeyay hadalheentooda ay u badneed Badri Axmed Qaalib Ambalaas oo kamid ah dadka ku dhaqan gudaha magaaladan Boorame kaasoo sameeyay horumar taariikhi ah oo aad u soo jiitay indhaha bulshada ku dhaqan gudaha magaaladan Boorame. Badri Axmed Qaalib Ambalaas waxa uu kamid yahay dhalinyarada xoogsatada ah ee gacmahooda ku shaqeysta waxa uuna xirfada baalashka kabaha iyo meerida baabuurta kaga shaqeysta gudaha magaaladan Boorame gaar ahaan hotelka Reis ee Boorame iyo jaamacadda Camuud wuxuuna ku dhiiraday in lacagaha uu ka helo xirfadahaasi kala duwan uu qayb kamid ah uu meel dhigto isla markaana ay u bataan taasoo keentay inuu iibsado gaari kamid ah baabuurta ka dhex shaqeysa Boorame iyo Hargeysa. Ambalaas oo inuu maanta kula kulanay gudaha magaaladan Boorame ayaa waxa uu sharaxaya qaabka uu iibsaday gaarigaasi iyo shucuurtiisa sida ay maanta tahay. aywa Badri Axmed Qaalib oo ku magac dheer Ambalaas taasi oo gaar ahaan baabuurta iyo baalashka ka shaqeysto oo kolba wixii ku soo galaan waxna dhig waxna iska seef galeen masaariftii waxay meel ka goysid taasi oo dhowr sano ka shaqeynay yaan dana ku hameenan jaamacadii tago marka dambe jaamacadii in badan joogay dhowr sano markaan joogay baan ku hameenan xogaaga yar markaan arkay inaan wax iibsan karo nin baa xageed ka qooqdo jeebka ka qooqay buu marka inaan ku hameenan gaariga iibsado gaarigina uu ilaahay uu sirto galiyo waan iibsaday gaarigii imka waa kolba suuq xun baa ku xiran tahay adoo masaariftii shidaalkiisa ugu fureeyay masaarifta soo saara maytan waa taan ka bilaabay kama dalcin mustaqbalka ku weyn ma ka dalacayna wali waana waa shaqeynaa gaarigina oo shaqeeyana waan iska shaqeystaa insha Allah waan joojin doonaa imka laakiin waan isku xoogsanay marka wax weyn aanti weyn ku qabsatay mooyaan imka laakiin waan isku xoogsadaa inaan joojin laga ma yaabo waa xafid joogta Boorame diganta gabdhada go'ay ciyaalkii kala maraya labada gabdhood way weyn dadaalaba horta xajabaas uu gaara waana dhaaf karaa marka waxaan leeyahay halka taagan maanta inay kor u soo dhaafaan ma jeclay oo inay si dhaafaan ay ku dadaalaan waxna qabsadaan ama nin waa ka shaqeystaan oo wax bartay weyn ama wax bartaan iyo shaqeystaan waxba kama dhaxayaan dadka berwada waa mid walaal bis Maxamed Waalin marka arrinka berwadan iska joojiyaan leh Cabdi Fataax Axmed Hadwanaag News magaalada Boorame.